Booliska Soomaaliya oo sheegay in ay soo gabagabeeyeen wajiga koowaad ee howlgal ay ka wadeen magaalada Muqdisho ayaa soo saaray amaro culus oo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda. Afhayeenka ciidanka booliska ayaa sheegay in Muqdisho ay ka mamnuuceen bajaajta xilliga habeenkii wixii ka dambeeya 12 saqda dhexe isagoo digniin u diray wadayaasha mootada iyo milkiilayaasha iska leh ayuu dhinaca kale ku sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono askarigii lagu arko isagoo dhar ciidan wata isla markaana hubaysan oo dhex socda xaafadaha Muqdisho. Si kastaba lama oga siday caasimaddu ugu dhaqangali doonto awaamirtan oo la rumaysan yahay inay yihiin kuwo adag iyadoo dhalinyarada qaar ee magaalada ay gaaraan ilaa galiga dambe ee habeenkii. Waxaa sidoo kale caasimadda la og yahay in galbiska aroosyada uu waayadan gaaray ilaa 2 habeenimo ee saqdii dhexe.